halkani waa BBC Afrikada Bari saacadu waa 7:00 ee aroornimo oo gow ah waxaad naga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban FM-yada iyo Facebooka internetkana waxaad naga heli kartaan bbcsomali.com kulanti wacan oo wanaagsan subax wanaagsan dhamaantiinba dhageystayaal meel kasta oo aad joogtaan waa subaxnimo khamiis ah 7 bisha Janaayo ee sanadka 2020 22 dabcan idaacadda subaxnimona waxa idin la socodsiin doonta anigoo ah Kawthar Maxamed Cabdullaahi qodobada waxa kamid ah taageerayaasha Trump oo careysan oo weeraray xarunta Koongareeska ee Mareykanka waxaana ku dhintay hal qof xisbiga dimuqraadiga uu ku guuleystay kursiga sanadka ee gobolka Georgia dhageystayaal barnaamijkeena subaxnimo ee maanta waxaanu intiisa badan ku soo qaadan doonaa taariikhda Allah u naxariistay wariyihii ruucadaaga ee BBC-da Axmed Cabdinuur iyo qaar ka mid ah madaxdii hore laanta af Soomaaliga ee BBC-da iyo waliba wariyaashii ee ay Axmed soo wada shaqeeyeen oo taasi ka diray geeridiisa bal aan dib idin xasuusino codka Allah u naxariistay Axmed Cabdinuur halkani waa BBC London oo idinkaga imaanaysa mawjadaha gaagaaban ee filimyada magaalooyinka qaar telefoonka gacanta iyo internetka bbcsomali.com saacadu waa 5 galabnimo Afrikada Bari kulanti wanaagsan dhamaantiinba Axmed Cabdinuur ayaan ahay barnaamijkan waxaa soo saaray Cabdulqaadir Yuusuf Cali balse intaas oo dhan waxaa ka horeynaya wararka caalamka ee BBC-da waxaa inoo haysta Faadumo Macalin Abuukar oo ku sugan meel ka baxsan stuudiyaha Faadumo aad baad Kawthar u mahadsan tahay Koongareeska Mareykanka ayaa dib u bilaabay xaqiijinta natiijada doorashadii madaxtinimo ee sanadkii la soo dhaafay ka dhacday dalkaasi kadib markii koox ka tirsan taageerayaasha madaxweyne Trump ay ku xoomeen dhismaha Capitol Hill iyagoo isku dayaya in la laalo natiijada doorashada hal haweeney ayaa lagu soo waramayaa in la toogtay taasoo markii dambe dhaawac u geeriyootay madaxweyne ku-xigeenka Mike Pence iyo waliba hogaamiyaasha aqalka sare iyo aqalka wakiilada ayaa cambaareeyay isku dhaci halkaasi ka dhacay iyagoo sheegay inay sii wadan doonaan kulanka Koongareeska tiro xulafada Trump ka mid ah oo aqalka sare ka tirsan ayaa iyagu diidmo ka muujiyay xaqiijinta natiijadii doorashada dhowr madaxweynayaashii hore ee Mareykanka ayaa iyagu cambaareeyay dhacdooyinkii shalay ka dhacay dalkaasi madaxweynihii hore ee Mareykanka Barack Obama ayaa arintaasi si xoogan wuxuu ugu eedeeyay Donald Trump isagoo sheegay in inkastoo ay ceeb u soo jiiday Mareykanka haddana aysan ahayn kuwa markaasi kadis ahaa wixii dhacay sidoo kale xubno ka tirsan jamhuuriga ayaa cambaareeyay arintaasi Mike Gallagher oo jamhuuriga ka tirsan ayaa sheegay in wixii dhacay ay ahaayeen wax laga haboonaa sidoo kale senatorka Ben Sasse ayaa isaguna waxa uu sheegay in beentu ay cuqubo leedahay isla markaana qalalaasuhu uu ahaa mid aanan laga baaqsan karin dhanka kalena haweeneydii afhayeenka u ahayd Melania Trump Stephanie Grisham ayaa iyadu iscasishay hogaamiyaasha caalamkana la yaab iyo walaac ay ka muujiyeen wixii ka dhacay Mareykanka xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa ku baaqay in la tixgeliyo hanaanka dimuqraadiyadeed madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron weerarkii lagu qaaday Capitol Hill waxa uu ku tilmaamay inay ahayd wax aanan Mareykanka lagu aqoonin dhanka kale dimuqraadiyiinta ayaa lagu wadaa inay la wareegaan aqlabiyadda aqalka sare ee Mareykanka kadib markii John Ossoff loo saadaaliyay inuu ku guuleystay doorashadii ku celiska ahayd ee ka dhacday gobolka Georgia iyadoo la tiriyay 98% codadka ayaa Mr. Ossoff wuxuu musharaxa xisbiga jamhuuriga David Perdue ku hogaaminayaa 50.3 wararka kale haddii aan eegnana gobolka Quebec ee dalka Canada ayaa ku dhawaaqay 4 toddobaad oo xayiraad ah taasoo bilaabanaysa Sabtida soo socota iyadoo ay sii kordhayaan kiisaska coronavirus wararkii caalamkana waa inaga intaan dib idinkugu celiyo Kawthar iyo qaybaha kale idaacadda aad baa mahadsan tahay Faadumo Macalin Abuukar oo inala socodsiinaysay wararka caalamka ee BBC-da ayay ahayd markana u diyaar garooba qaybaha kale idaacadeena waa tahay subax wanaagsan mar kale dhageystayaal sida warkaba aad ku maqlayseen taageerayaasha madaxweyne Donald Trump ayaa weeraray dhismaha Capitol Hill ee xarunta Koongareeska ee Mareykanka hal haweeney ayaa la toogtay taasoo markii dambe geeriyootay aqalka sanadka ayaa waxa
ay u fadhiyeenba inay ansixiyaan guushii madaxweynaha la doortay ee Joe Biden, waxaana halkaasi ku sugnaa madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka ee Mike Pence oo laga saaray goobta. Dhanka kale, xisbiga dimuqraadiga ayaa waxaa lagu soo waramayaa inuu ku guuleystay doorashadii ku-celiska ahayd ee sanadka ee gobolka Georgia. Dimuqraadiyiintu ayaa maamuli doona aqalka sanadka, aqalka wakiilada iyo aqalka cad markii ugu horeysay tan iyo sanadkii 2009. Haddaba si aan faahfaahin dheeraad ah ugu helno rabshadihii ka dhacay xarunta Koongareeska iyo doorashada gobolka Georgia ayaa waxaan ka waraystay Najaax Maxamed Cali oo ah wariye madax bannaan oo degan gobolka Georgia. Khadka telefoonka ayuuna igu waramay. Waxyadan horta sida warbaahintuba ay shaaciyeen waa taageerayaasha madaxweynaha xilligiisa uu dhamaanaya Mareykanka ee Donald Trump, waxaana sidoo kale ay kusoo aadaysaa xilligii Georgia doorashadeedu ay ahayd mid inta badan indhaha dadku ay hayeen, waxayna taageerayaashan ay gudaha u galeen xarunta Capitol Hill ama xarunta Congress-ka. sidoo kalena waxay sameeyeen rabshado fara badan, waxaana la sheegayaa in ay yihiin kuwa inta badan taageersan hadal madaxweynaha uu sheegay, taasoo sababtayba markii ay gudaha u galeen xarunta in ay hadleen mas-uuliyiin kala duwan oo ka mid yahay madaxweynaha la doortay Mareykanka Joe Biden. sidoo kalena markii dambe way ka baxeen xarunta markii Donald Trump uu ugu baaqay inay guryahooda aadaan. Akoonso waxaan ku sheegi karaa xarunta intii mudaharaadyada ay socdeen waxaa lagu dhaawacay qof dumar ah oo warbaahintu hadda ay sheegayaan inay dhimatay. sidoo kale waxaa la leeyahay waxay sababeen taageerayaashu khasaare kala duwan oo markay xarunta gudaha ay u galeen waxay sameeyeen inay fuuleen derbiyadii, waxay jebiyeen albaabadii. taariikhda Mareykankana waxaa la leeyahay waa markii ugu horeysay oo shacab mudaharaadaya ay gudaha u galaan xarunta Capitol Hill-ka Mareykanka. ma jiraan tallaabooyin ay qaaday dawladda oo lagu xakameynayo rabshadahan? hadda waxaa toos ula wareegay xarunta iyo agaarkeedaba alaamaha kala duwan ee ammaanka oo ay ku jiraan ciidamada loo yaqaano kuwa amniga ee suga, waxaana 6 maqribnimo markay ahayd bandow la geliyey magaalada Washington DC. bandowgaas oo socon doona ilaa berri 6 subaxnimo markay tahay. hadda isku socodka eriyada waxa waaye inta badan waxaa xakameynaya ciidamada. markaan kasoo tagno rabshadaha xarunta Koongareeska, dhanka kale waxaa soo baxday natiijada doorashada tartanka sanadka ee ka dhacday gobolka Georgia, taas oo ay guusha ku raacday xisbiga dimuqraadiga. marka guushan maxay uga dhigan tahay xisbiga dimuqraadiga? guushan waxay uga dhigan tahay xisbiga dimuqraadiga mid weyn ee ay gaareen, maxaa yeelay horey waxay u haysteen aqalka wakiilada, haddana waxay ku darsadeen aqalka sanadka. marka taas waxay imaanaysaa iyadoo horey xisbiga dimuqraadiga uu madaxweynaha ugu guuleystay, waxayna u muuqataa hadda inay ku guuleysteen qaybihii kala duwanaa ee aqalka Congress-ka iyo madaxweynaha, taasoo u sahlayso haddii ay rabaan inay wax bedelaan ama ay sharciyo meel mariyaan in ay si fudud u heli karaan, maadaama 50 hadda aqalka sanadka ay kala haystaan. sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka codkiisa loo baahanayana uu yahay xisbiga dimuqraadiga. marka dimuqraadiyiintu guushan waxay u tahay guul weyn oo taariikhi ah oo ay gaareen, sidoo kalena taageerayaashoodu ay aada ugu farxeen. guuldarada soo gaartay xisbiga jamhuuriga maxaa saameynaha ay ku yeelan doontaa mustaqbalka siyaasadooda? saameyn weyn bay ku yeelan doontaa. waxaadna garan kartaa marka golihii sharciyada kala duwanaa ee Mareykanka haddii ay ahaan lahaayeen aqalkii hoose iyo aqalkii sareba marka tiradooda lagala wareego, waxaana sidoo kale muuqataba in marka la gaaro 20 bishan oonan xubin ama madax kasii ahaan doonin golahan Congress-ka Mark McConnell oo dadku ay aada u wada yaqaanaan xisbigaasna ka tirsan. sidoo kalena waxaa fududaan doontaba haddii ay rabaan inay ka hor yimaadaan sharciyo la rabo in la gudbiyo ama wax laga bedel lagu sameeyo inayna u suuragelaynin maadaama laga haysto codadka guud ee Congress-ka. marka inta uu jiro dawladdan waxay u muuqataa in ay ayaga siyaasadooda ay tahay mid yara gaabinayso maadaama aynan haysanin codadkii loo baahnaa ay ku diidi lahaayeen ama ay ku meel marin lahaayeen. waa tahay kaasina waxa uu ahaa Najaax Maxamed Cali oo ah wariye madax bannaan oo degan gobolka Georgia oo ii waramayay. markana sida aan horudhac idinkugu sheegay dhegeystayaal, barnaamijkeena subaxnimo waxaanu intiisa badan ama qaybaha haatan inooga haray baan ku soo qaadan doonaa taariikhda Allah u naxariistay wariyihii rugcadaaga ahaa ee Axmed Cabdinuur oo shalay ku geeriyooday magaalada London oo sida la sheegayna ama la xaqiijiyayba uu geeriyooday xanuunka COVID-19. geerida Axmed Cabdinuur waxaa tacsi ka diray madaxdii hore ee laanta af Soomaaliga ee BBC-da iyo weliba qaar ka mid ah wariyaashii hore
oo ay Axmed soo wada shaqeeyeen ayagoo sidoo kale ka sheekeeyay waayihii warbaahinta ee Axmed Cabdinuur iyo shakhsiyadiisaba. Axmed Mursal Xuseen ayaa warbixintan ku eegaya. Axmed Cabdinuur ayaa magaalada Ceelbuur ku dhashay sanadkii 1955 waxa uu wax ku bartay magaalada Muqdisho oo kaga baxay dugsigii Macallin Jaamac kadibna waxa uu dhigtay jaamacaddii Lafoole. dhinaca shaqadana waxa uu ahaa mid ka mid ah wariyaashii ugu waaweynaa Soomaalida oo ka soo howlgalay Radio Muqdisho iyo BBC. sanadkii 1982 ayuu ku biiray Radio Muqdisho kadibna waxa uu ka mid noqday raggii ugu horeeyay ee lagu bilaabay telefishinka qaranka ee Soomaaliya. Axmed Cabdinuur ayaa BBC-da ku biiray bishii Juun ee sanadkii 1996 wuxuuna noqday wariyaha laanta af Soomaaliga ee magaalooyinka Muqdisho iyo Nairobi asagoo markii dambena u wareegay magaalada London. horaantii sanadkii 2019 ayuu ka fariistay shaqada BBC-da laanteeda af Soomaaliga. madaxdii laanta af Soomaaliga ee BBC-da ee Axmed Cabdinuur ay soo wada shaqeeyeen ayaa waxaa ka mid ahaa madaxii hore ee laanta af Soomaaliga Maxamed Cabdulaahi waxa uuna ka tacsiyeeyay geerida Axmed Cabdinuur. inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. waxaan jeclahay inay ga gaadho taasi reerkii uu ka dhintay Axmed iyo asxaabtiisii dadkii wada shaqayn jireen khaas ahaan BBC-da eeladiisii iyo asxaabtiisii oo dhan. Axmed aad iyo aad baa kolleyba geeri kasta waa laga naxaa laakiin geeridii qofaa wada shaqayn jirteen oo meel ku wada nooleydeen si gooniyay ku taabanaysaa. weliba Axmed waa iska yidhaahaa dadku hebel ma ku dhinto nin wanaagsan buu ahaa laakiin Axmed nin wanaagsan buu ahaa. Maxamed Cabdulaahi ayaa dhanka kale ka sheekeeyay wixii uu ka yaqaanay Axmed Cabdinuur oo muddo dheer ay soo wada shaqeeyeen. Axmed waxaan si fiican isu baranay 1995 meelaha. waxa weeyaan wuxuu joogay xamar buu wariye nooga ahaa. wariye wanaagsan buu ahaa waqti khatara oo Muqdishoda koonfur iyo waqooyi ay u kala xidhnayd halkaasay hogaaminayeen kooxo. marka hawl adag buu meesha ka qabanayay asaga warka saxda soo gudbinayay. khatar badanna wuu galay maxaa yeelay wax xumaan uu asagu sameeyay ma jirin. waxa weeyaan warka xaqiiqada ee runta ah ee xamar uu ka sheegay markii dagaaladii sokeeye ee xumaaya foosha xumaa ee meesha ay ka socdeen ayuu asaga meesha wariye ka ahaa. marka Axmed berigaasaan si fiican isu baranay kabacdina aniga laanta madaxda u ahaa London baan keenay oo tababaro badan uu ku qaatay. markii dambena waxaan u wareejiyay magaalada Nairobi halkaasuu ka soo tabinay wararka. Axmed wuxuu ahaa nin qaali ah labeenta ama wuxuuna dadka laga soo xushay Radio Muqdisho buu ahaa oo ka soo shaqeeyay. waxa weeyaan nin lagu xusuusanay horta dabci wanaagsan oo qabow oo degan nin oday ahaa oo buuq iyo waxaas aan ku dhex jirin shaqadiisana si fiican uga adag. Yuusuf Garaad Cumar madaxii hore ee laanta af Soomaaliga ayaa dhankiisa sidaasi la mid ah tacsi ka diray geerida Axmed Cabdinuur oo asna ay muddo dheer soo wada shaqeeyeen asagoo tilmaamay in Axmed uu ahaa haldoor shaqo hufan oo la wada tabi doono. inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. allah u naxariisto Axmed Cabdinuur oo ahaa wariye heer qaran ah oo heer caalami ah oo muddo dheer aan Radio Muqdisho ka soo wada shaqeynay iyo saxaafadda qaranka isagu telefishinkana ragga bilaabay oo ahaa BBC-dana aan muddo dheer ka wada shaqeynay saaxiib dhowna aan ahayn. ilaahay ha u naxariisto ehelkiisa iyo saaxiibadiisna waan uga tacsiyanayaa isagana waxaan ilaahay uga baryaa inuu naxariisto janno ka waraabiyo. Axmed Cabdinuur waxay isugu keen horeysay qiyaastii 82 mar aan imtixaan u galay Radio Muqdisho 83dina waan wada shaqeynay. wuxuu ahaa labadii wariye ee ugu horeeyay ee midkood aan la wada akhriyay markii ugu horeysay idaacaddan ka hadlay barnaamij aan la akhriyay ayuu ahaa. isaga bilowgii hore soo gacan qabtay. wuxuu ahaa labadii wariye ee lagu bilaabay telefishinka qaranka Soomaaliya midkood oo waxay u kala tagi jireen maalinba mid baa warka akhrin jiray. labada wariye ayuu ka mid ahaa. wuxuu ka mid ahaa macnihii dadkii soo bilaabay telefishinka qaranka. Axmed kadib waxaan ka wada shaqeynay BBC-da 94 anigoo shaqo weyn Muqdisho aan damcay inaan ka dhigo wariyaha labaad ee Muqdisho ka warrama laakiin uu arrinta ka cudur daartay oo uu yiri wariyaha 2 bilood ka hor hawsha loo xil saaray waa wariye deegaan ahaan ka soo jeeda deegaan kale oo markaa ka tirsan Somaliland. waana nin aan ka soo wada shaqeynay telefishinka qaranka. ma doonayo in aan anigu ka daba qaato waxay wakaanaysaa nooc maaragtay in aan ka daba qaato oo kale ma doonayo. marka uu sida leeyahay Axmed iimaankiisa ku tusaysaa magaalada Muqdisho shaqa ma jirin gaajo badanna way jirtay amni darro badanna way kaga gaabsaday. beri dambe ayaa loo xil saaray
wariyaha muqdisho inuu noqdo muddo ayuu shaqaynayay xilli adag oo dagaalo badan ay ka jireen wadanka colaad badan ay ka jirtay haddana wuxuu ahaa wariye si dhexdhexaadana wax uu report gareeya isla markaana danihiisa shakhsiga iyo dareenkiisa iyo caadifadiisa aan dhexgelin barnaamijyadiisa kadib waxaa la geeyey xafiiska Nairobi London muddo gaaban ayuu joogay oo mar uu yimid oo tababar ku qaatay aakhirkii laakiin London ayaa lagu soo celiyay oo shaqo laga siiyay halkaas ayaan muddo dheer wada shaqaynay Ahmed wuxuu ahaa nin dabeecad degan qabow leh dulqaad badan Cabdullaahi Cabdi Sheekh madaxii hore ee laanta af Soomaaliga oo ahaa tifaftirihii ugu dambeeyay ee Axmed Cabdinuur ay soo wada shaqeeyeen ayaa tacsida ka sokow shaqo wanaag ku amaanay waxa uuna xusay in asaga laftigiisa uu soo gacan qabtay Axmed Cabdinuur geeridiisa waliba sida qaflada ah ku timid naxdin iyo murugo nagu noqotay maxaa yeelay wuxuu kamid ahaa dadka akhyaarta ah ee wariyaasha ah maaragtay cid walba ay diidin oo cid walba ay heshiis yihiin oo cid walba ay isdabci ogol yihiin oo qofka kale inay wax la jiraan moogay isaga weligiisna ama hadal xun ha noqdo ama dabci xun ha noqdo aanay weligiis waxba la jirin oo aanay waxba raacayn u ahaa Axmed wuxuu kamid ahaa markii aan ku biiray BBC da qaybteeda af Soomaaliga maadaama aniga markii aan kusoo biiray aan kusoo galay jaga oo senior ah oo aan ka imid qayb kale wax badan kama garanayn runtii arrimaha raadiyaha wixii la xiriira marka Axmed waxa uu kamid ahaa dadkii aan aad uga faa'iideystay oo maaragtay khibradda dhanka raadiyaha maadaama uu khibrad dheer lahaa raadiyo muqdisho kasoo shaqeeyey oo dadkii BBC da ugu horreyn uu kamid ahaa khibradiisaas aad ayaan uga faa'iideystay oo wax badan ayaa weydiin jiray oo wax badan aan ka faa'iideysan jiray markii dambena oo idaacadda madax ka noqdayna waxa uu kamid noqday shaqaalihii hoos imaanayay marka runtu markaan sheego mararka qaar markaan la hadlaaya waxaan dareemi jiray xoogaho aadan uga xishoon jiray aadaana maaragtay aan u xushmayn jiray aadaana maaragtay aan aniga asaga usu xushmayn jirnay oo maadaama uu kamid ahaa dadkii markii horena soo gacan qabtay oo kasoo faa'iiday markii dambena aan haddana aan madax u noqday marka asagana weligiis ima dareensiinin markii aan madax noqday ima dareensiinin markii hore aan khibrad la-aanta ahaa wixii aan ka faa'iidayay wixii oo dhan inta dareensiinin oo wuxuu ila dhaqmaayay sidii nin madax u ah ana mararka qaar aan dhihi jiray Axmed waad og tahay waa kii adiga aan wax badan ka baranay marka adiga waa adiga inaan aad boos idaahdid ama wax noocaas aad idaahdid waa in maaragtay aad si caadi ah aad u sheekaysano oo si caadi ah u baxgalno oo si caadi maaragtay sideen hore aan dhihi jiray marka asagana wuxuu dhihi jiray wax jiraan hadda roolalkii duurka waa isbedelay marka sida aan ku wada soconno marka min saas u wanaagsan oo dabci macaan oo aad u macaan oo marnaba ina isdiiday inuu ahaa ugu dambayntiina Muxyidiin Axmed Roble madaxa laanta af Soomaaliga ee BBC da ee haatan ayaa dhankiisa tacsi ka diray geeridii naxdinta lahayd ee ku timid Axmed Cabdinuur inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun Axmed Cabdinuur wuxuu ahaa nin wariye ah oo aad loo jecel yahay oo dhowr iyo 20 sano BBC da ka soo shaqeynayay ka horna warbaahinta kale Soomaaliyeed ka shaqeeyay anigoo ku hadlaya markaa magaca BBC da laanta af Soomaaliga si gaar ah marka ugu horeysa waxaan tacsi u dirayaa xaaskiisa wiilkiisa iyo ehelkiisa iyo asxaabtiisa kale iyo warbaahinta Soomaaliyeed si gaar ah dadka isla soo shaqeeyeen ee BBC ka soo wada shaqeeyeen ogaalkayga iyo xasuustaydu Axmed Cabdinuur markii ugu horeysay waxaynu saacidnay 2014 maraynu si kooban u booqday oo aan kula kulmay xaruntii BBC ee bariga London ee ku lahayd waxaan si fiican isu baranay oo aadna usugu soo dhawaanay wax badanna aan si joogta u xiriireynay wixii ka dambeeyay markii aan ku soo biiray BBC da oo lay magacaabay tifaftiraha laanta af Soomaaliga bishii March sanadkii wixii markaa ka dambeeyay si joogta ah oo dhow ayaan u wada soconay isagoo igu biirinayay talooyin waxgal ah soo jeedimo iyo sida uu markaa u arkayay in shaqada culays kale ee mas'uuliyadda leh ee la xil saaray inaan qurxiyo ugu Soomaalida marka waxaan qorsheenu ahaa oo inta inoo dheeraa inaan filaynay inuu Axmed Cabdinuur dib ugu soo noqdo BBC da bartamaha bishan isagoo si madax banaan ula shaqeyn lahaa laanta af Soomaaliga isagoo jooga London oo uu dhowr sano ka hor ka ruqsaystay wuxuu ahaa nin wariye ah oo la wada jecel yahay dadkoo dhan xushmo u wada hayaan samir iyo iimaan inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun
آمين آمين. codkaasi muxiidiin ayaa waxaa u dambeysay warbixintii Axmed Mursal Xuseen uu ka diyaariyey tacsidii ay dirayeen madaxdii hore ee laanta af Soomaaliga ee BBC-da. Dhanka kale waxaa tacsi ka diray geerida Axmed Cabdinuur qaar ka mid ah wariyaashii hore ee laanta af Soomaaliga ee BBC-da iyagoo Ilaahay uga baryay inuu naxariistii janno ka waraabiyo. Waxaana marka hore tacsida diraya Maxamed Sheekh Axmed Dalmar. الرحمن الرحيم ومحمود شيخ أحمد دلمر صحيفة يجي نقول دارا أحمد عبد النور إلهي ونحرسته ودولة وضمري ونفلي ودرمين سجيرده مركا وحا أن تعزي أدرى يا دمان أهلكي أصحابسي يو قويسكيسي جارهان حاسكيسي زينب ياسين يو إنكيسي محمد يو دمان قويسك أودن يو أصحابسي يو أهلدي ولها أحمد عبد النور إلهي ونحرسته وحوها من غالية من آدي آد وأسفرا وأصدودا يقيموا يبقايو ضد صعود له waxaan isbaranay aniga markii uu noogu yimid reer Muqdisho oo marka aan madax u ahaa dabeetana isagoo aan u malaynay inuu macallin ahaa markiiba marka waxa noo muuqatay nin maaragtay miisaan leeyahay inuu yahay cod ahaan iyo garasho ahaan cilmiga iyo af Soomaaliga milgihiisa intaba marka wararka ayaa aan ku wareejinay inta wixii ka dambeeyayna waa la garanayaa marxaladii ugu adkaa ee Muqdisho markii dagaaladu ka dhacayeen ee dawladda dhexe burburtay kadib ninkii halka maaragtay barroosinkii uu hayay buu ahaa soo warramayay markii dambena London iyo BBC-da yimi mar walbana nin ma garanaysa shaqadiisa iyo hadalkiisa iyo dastuurkiisa aad loogu bogobo ahaa qof ahaana qof aad iyo aad u wanaagsan inta ibn aadan wanaagsan yahay intii anagu aan isnaqaanay oo waliba muddo sanad ku dhow aanu guri ku wada jiray London waxa aan hubaa inuu ahaa qof aad iyo aad u wanaagsan dad la socod leh xiriirin wanaagsan meeran Allah ku xiriiriye nin laga nabad galo af iyo adinba ayuu ahaa nin caabid ah oo marka aanu isbaranay yani salaad sax ayuu ahaa nin aad iyo aad dadka inuu wax taro oo caawiyo haddii aanu wax tarayna aanu waxyeello geysan oo laga amaan helo buu ahaa sidaasaanu u arkayay ilaahay addoomihiisa loo ammaani maayo laa nuzaki cala allahi axadan ilaahay addoomihiisa isaga inooga u ammaani mayno ninka wanaagaala buu ahaa ilaahay u naxariisto raxmad waasica allaha siiyo inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun anigoo ah cabdinuur maxamed saxaab waxaan marka hore ka tacsiyanayaa geerida walaalkeen Axmed Cabdinuur si gaar ah xaaskiisa iyo qoyskiisa oo dhan wiilkiisa iyo marka xiga bahra saxaafadda meel kasta ay joogaan gaar ahaan BBC-da Axmed Cabdinuur waxaan aqoonay ilaa iyo dhammaadkii toddobaatanaadkii muddadaas ilaa iyo dhowr maalmood ka hor oo aanu intaa wada xiriirayno aan wada joognay waxaan ku aqaanaa qof inuu ahaa run ahaantii aad iyo aad ilaahay dhinac walba ka hagaajiyey xagga aqoonta dadnimada cibaadada akhlaaqda dadla dhaqanka dhinac walba inuu ahaa qof aad iyo aad u wanaagsan shaqadiisana runtii aad iyo aad ugu fiicnaa sida weliba maaragtay iga taxadaro warka uu sheegayo inaan hadda cilada ka imaan dadka kalena wax tiri jiray mar walbana ku dadaali jiray in waxa uu sheegaya ay ahaadaan wax uu isagu dadaandugiyey oo uu hubay waxaan filaya muddadaas dheer aan wada shaqeynay inuusan ku ekaano keliya xataa warbaahinta ee dhinaca isboortigana uu aad iyo aad u tabin jiray oo ugu fiicnaa siba cayaarihii kubadda horyaalka ingiriiska iyo kuwii soomaalida iyo sabti walba iyo waktiyada ay dhacayaanba si toose uga soo tabin jiray BBC-da London Axmed Cabdinuur run ahaantii geeridiisa inkastoo dilo wada dhimanayo oo qof noolaanaya u jira haddana geeri waxaa jirta aad iyo aad runtii kuu saameynaysa ninkaas saaxiibtinimadayda iyo xiriirkaygii darteed ayaan maaragtay si gaar ay ii saamaysay runtii annagii weliba intii ay soo wada shaqeeyeen oo BBC-da gaar ahaan sanadadii dambe waxaan ilaahay uga rajeynayaa inuu jannadii ugu bishaareeyo Soomaaliya oo dhanna uu sabadiyo ma ka siiyo gaar ahaan xaaskiisa iyo caruurtii anigoo ah Axmed Saciid Cige waxaan tacsi tiiraanyal u dirayaa guud ahaan qoyska uu ka geeriyooday wariyahayagii aanu saaxiibka ahayn caanka Axmed Cabdinuur gaar ahaan waxaan tacsi gaar u dirayaa xaaskiisa Zaynab Yaasiin Xirsi iyo wiilkiisa Maxamed Axmed Cabdinuur ilaahay u naxariisto kullu nafsi daa'iqatul mawt Axmed Cabdinuur Radio Muqdisho ayaan ku soo wada shaqeynay oo 1981 baan isbaranay waxa kale oo markii dambe aan ku soo wada shaqeynay BBC-da oo aan xataa guri ku wada jirnay muddo sanad dheeraad ah 2003 waxaan ku tilmaami karaa in uu yahay wariye rugcada ah mid degan dulqaad leh ilaahay ka cabsada dhexdhexaada hufan oo aad iyo aad biyamadaasho ah oo tafatire hufan ahaa oo aad iyo shaqadiisa uga adkaa oo guud ahaan waxaan markhaati ka ah in wariyaasha ay soo wada shaqeeyeen marka BBC oo kale FT Radio Muqdisho inaanu jirin qof ka cabanaya Axmed Cabdinuur ama qof ku dhaliilaya shaqadiisa oo qof in xagga dhexdhexaadnimada iyo dheelitirka wararka
ku canaanan kara axmed ama wax kaga sheegi kara. ilaahay u naxariisto axmed weriye weyn buu ahaa. waxaa kale oo ahaa macalin buu ahaa kahor intaan radio muqdisho kusoo biirinay saxaafadda soo gelin. tababare ayuu ahaa iyo siiri wale kubadda koleyga ee muqdisho. marka dee ninkaa caankaa buu ahaa. ilaahay ha u naxariisto guud ahaana sabriya iyo raga siiyo iyo inagaba iyo ehelkiisaba. bismillahi raxmaani raxiim. waxaa la yidhaahdaa Siciid Cali Muuse. inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun. kullu nafsin daa'iqatul mawt. halkan tacsiye aan ka gaarsiinayaa geerida ku timi Axmed Cabdinuur oo shalay oo Arbaco ah subaxnimadii 10kii subaxnimo waqtiga London ku geeriyooday. halka kan sida la ii sheegay xaaskiisu ii sheegtana waxaa ku dhacay xanuunka COVID-19 uu geeriyooday. Axmed ilaahay ha u naxariisto, jannadii baan ilaahay uga baryanaa inuu ilaahay geeyo. Axmed Cabdinuur aqoon ahaan waxaa igu horreysay aniga sanadii 1975 isagoo ku jira oo la foole oo markaa ahaa macallimiintii BB-da la oran jiray primary program oo iskuullada dugsiyada hoose dhexe loo tababarayay. aniguna markaa aan jaamacadda la foole ku jiray baa aragtidiisa igu horreysay iyo barashadiisaba. markii dambena waxaanu ahaynba macallimiin anigu 1980 macallimiin ay qoratay radio muqdisho loo qaadanayay markaasi oo imtixaanka nalaga qaaday baanu ka mid nahayn aniga iyo isaga iyo Cabdinuur iyo iyagu way markaas igaga dambeeyeen oo way ka shaqeeyeen. laakiin anigu si aan joogto ahayn baan uga shaqeynayo marmar barnaamijyo u sameyn jiray oo uga tagi jiray. halka idaacadda radio muqdisho waanu isku soo gaadhnay. markii dambeetana BBC-dan ka wada shaqeynay. ilaahay u naxariistay marxuumku. waxyaabaha Axmed aan ku xusuusanayo waxaa ka mid ah Axmed wuxuu ahaa ilaahay u naxariistay nin dabeecad wanaagsan. dadku Soomaalidu waa taqaanaa oo marka qofku dhintay ammaanaan, laakiin waa xaqiiqtan ka hadlayaa oo qalbigayga runtii ka soo go'day weeyaan. Axmed wuxuu ahaa nin aan xaraaqin, wuxuu ahaa nin dabeecad wanaagsan oo qosol badan, waxa uu ahaa nin dadka ka qosliya aad u afgaaban, laakiin marka uu ka soo wuxuu ahaa mid aad ku qoslayso oo ka qoslinayo waqtiyada farxadda. wuxuu ahaa nin shaqo badan oo shaqadiisa BBC ahaan ku wanaagsan samaynta barnaamijyada. berigii dambe anigu aan ka tagay BBC-dana wuxuu samayn jiray barnaamijka isboortiga. maalina wuuba igu marti qaaday. Axmed wuxuu ahaa ninka caynkaasa buu ahaa. waxaynu ilaahay uga baryeennaa inuu ilaahay u naxariisto jannadiina ka waraabiyo. آمين 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 waxay hayeen qaar ka mid ah wariyaashii hore ee laanta af Soomaaliga ee BBC-da oo tacsiye ka diray geerida Allah u naxariistay Axmed Cabdinuur. dhammaan bahda BBC-da isku duuban waxaanu leenahay Allah u naxariisto walaalkeen Axmed Cabdinuur. nin aad wanaagsan buu ahaa. samriyo iimaan Allah ka siiyo ehelkii uu ka baxayna. stuudiyaha waxay la fadhiyay Cabduqaadir Yuusuf Cali oo isna doonayay inuu tacsiye diro. Cabduqaadir. إنا لله وإنا إليه راجعون. كل نفس ذائقة الموت. الله أو نحريستو ولكن أذركن أحمد Cabdinuur. wuxuu ahaa xaqiiqdii nin qaali ah. muddo yar ayaan soo wada shaqeynay intii aan BBC-da joogay. wuxuu ahaa ninka keliya ee aan dhihi karo markuu qofka kusoo biro Kowsar BBC-do kaleeto mausan ahayn qof yaso ama yiraahdo qofkan uu cusub yahay oo kaleeto. Axmed waxaan kaloo ku xusuustaa inuu ahaa qof dhiirigeliye weyn ah oo aan dhihi karo maanta saxaafadeyda wuxuu ku leeyahay tallaabo ayaa qayb weyn ayuu ka qaatay. marka waxaan leenahay inagoo isku duuban dhammaantayada BBC dadka shaqaalaha tan ka wada shaqeeyo. inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. Allah u naxariisto, samir iimaan Allah naga siiyo. amiin amiin. kaliya ereyga aan ka xasuusto hadda ka hor anoo leh Leicester City baa wuxuu igu yiri Leicester ma ahane waa Leicester. hadda Leicester City markaa maqlo Axmed Cabdinuur Allah u naxariistay yaa igu soo dhaca. Allah u naxariisto. waa hagaag guud ahaan idaacadeeni subaxnimada dhageystayaal waa naga inta barnaamijka waxa soo saaray Cabduqaadir Yuusuf Cali anigoo ah Kawthar Maxamed Cabdullaahi ayaa idin la socodsiinayay tan iyo kulankeena xiga 2 duhurnimo inta ka horeysa waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo. Services are at bbcworldservice.com.
BBC. This is the BBC. There are no programmes on this channel at